بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ardayda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa anigoo Axmed Maxamed Jaamac oo raba in aan casharkii birimageydada qaybtiisii saddexaad aynu saaka rabno inaynu xiisadeenu ay ahaato haddii Rabbi idin ka dhigo birimageydada aan soo sheegnay waxay lahayd dhir waxay lahayd dad waxay lahayd dunyo marka casharkan saaka wuxuu ka hadlayaa hadii Ilaahay idinka ka dhigo ereyga birimageydo siyaabo badan ba Soomaalidu markay gobolada ay joogaan ereygan macnihiisu waa kala duwanaanaya maadaama de lahjadaha gobolada ay kala duwan yihiin wuxuu markay isugu soo biirshubanayaa birimageydo dhowr qaab baa loo yaqaan dadka qaar baa waxay u yaqaanaan toddobada lama taabtaan qayb waxay u taqaanaa xushmadleyda xumaha ka reeban waa xushmadleyda xumaha ka reeban qayb waxay u taqaanaa toddobada talaxtaga ka reeban in lagu fogaado ka reeban qayb kale waxay u taqaanaa magan iyo intii la maamuso marka waxay iyagoo dhan la macno noqonayaan kuwan ereyadan aan sheegnay ereyga birimageydo bay la macno noqonayaan birimageydadana macnaheena casharkii waxaan ku soo qaadanay koowaad waayahay waxa la dhahay Soomaalida marka laga hadlayo qofka hogaamiyaha ama oday dhaqameedka bulshada la rabo inuu waxa weeye dabeecad iyo dadnimo ku dhex noolaado oo ummadda kala hago waxa la dhihi jiray markaad xil qaadaysid Soomaalidu maxay tiraadaan in xil qaaday eed qaad markaad xil qaadaysid waxa la yiri Soomaalida murtiyo badan bay ku soo aroorisaa waxa kamid ah murtiyahan murtida soo socota oo sheegaysa markaad rabtid inaad hogaamiye Soomaaliyeed noqoto dadkii moogtay waa kala duwan yihiin oo maan dad waa mudaaciyaaradood ummadii waa kala fikir duwan tahay qayb ka xanaajinaya kuwa waxa weeydiilay kurin ku amaanaya qolaba sibay kula dhaqmaysaa marka adiga waxa laga rabaa inaadan waxa kugu dhaca oo dhan mararka qaarkood aaliqdo oo aadan isdareensiin marka rabtid inaad bulshada hogaamiye ka noqoto hadii laakiin qof walba uu hadal kugu yiraahdo hadalkiisa wax ka soo qaadid macna sumcadaada hogaamiyenimo ayaa meesha ku dhumaysa marka laga rabo waxyaalaha qaarkood inaad liqdid oo Soomaalidu maxay tiraahdaa curad oo nin reer u weyn ah iyo umulisaba siday wax u ogyihiin wax uma sheegan macnahaas marka meesha ku duugan muxuu yahay qofka hogaamiyaha ah ama oday dhaqameedka ah lama rabo inuu wax walba oo ku dhaca sheego waxa la rabaa waxyaalaha qaarkood iyagoo ku dhibaya aragtida inay dhib ku yihiin inay isdhaafisid hadallada qaarkood hadii dadku kugu dhahaan inaad dheg jalaq u siin oo ka socotid adiga oo ka raacaya muhiimadda danta dalka iyo dadka aad waxa weeye u xil saaran tahay aad malaaqa u tahay ama isinka u tahay ama oday dhaqameedka u tahay ama hogaamiyaha madax dawlo ama madax dhaqameed aad u tahay waaye marka waxa waa in dabeecadahan laga helaa qofka hogaamiyaha noqonaya koow waxa la yiri nin doofaar cay uga adkaysi badan doofaarka waa aragtay waa xayawaan kamid ah xayawaanadeena duurjoogta waxa weeye qof kasta oo arkay waa caaya ama wax walba oo la soo qaado doofaar baa lagu sheegaa ma fahanti macni waxa la yiraahdaa isagu wax uu dhimay ma jireen laakiin haddana qof walba waa eedaynaya saadartay waxa wax kasto ku soo gaaro waa inaad cay kasto kugu dhacda aad uga adkaysi badan tahay bahalkaas la yiraahdo doofaar waxa la yiraahdaa nin kurtun qorax uga adkaysi badan kurtunka waa geed la gooyay oo baarkii laga jaray oo salkii kaliya gomodii kaliya ay meesha ka taagantay qorax kasto ku dhacda ma kala jecla macni waxa la yiri waa in aad kurtunka sidiisa oo kale qoraxdana aad ugu adkaysi leedahay waxa la yiri nin dhagax qabow uga adkaysi badan qabow waa aragtay waa waxa weeydiilay ku run yahay aan loo adkaysan karin marka waxa la yiri markaad hogaamiye tahay sida dhagaxa uu qabowga ugu adkaysto waa inaad wax kasto bulshada kaaga yimaada aad u adkaysatid qodobka ku xiga wuxuu leeyahay iyo nin kudkude gaajo uga adkaysi badan kudkuduhu waa bahal cayayaan dhiig ku nool oo shilinta nooc kamid ah oo waxa weey dhulka ciidda ah oo kale to cadoonka oo kale uu ku nool yahay geedaha harkooda marka buu waxa weeye oo xooluhu soo harsadaan ama noolaha kala soo harsadaan
suuciidda ugu xabaalan yahay oo uusan waxba u cunayn goortuu sharqan ka dul dareemo ama culays ka dul dareemo noola dul jooga ah uu soo baxa gaajo marka bahalkaas waxaa la yidhi aad buu ugu adkaysi badan yahay markaad hogaamiye tahay waa inaad gaajadana uga adkaysi badan tahay bahalkaa la yidhaahdo kudkudaha waayo casharka marka laba qodob baa ugu dambeeya ardayay waxay sheegayaan soomaalidu waxyaalo badan bay markay birimageydada la xurmaynayo ay ka hadli jireen waxyaalahaas waxaa ka mid ah ay aadka isaga ilaalin jireen waxaa ka mid ahaa gobta iyo culimada iyo haweenka saddexdaas aad baa la isaga ilaalin jiray waxaa la yidhi gobta warka waxaa la yidhi maxaa looga baqi jiray waxaa looga baqi jiray looga baqaa baa la yidhi cuqubo yani waa inkaar beeshii dhammayd oo ugaaskaasi ama malaaqaas ama odaygaas uu caleema saaraa ma ogtahay haddii hadal lagu soo celiyo ama go'aan uu soo jeediye la diido oo uu ilaahu yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaan waxba idinka harin saa awgeed cuqubo ama inkaar kaaga dhacdaba isinka looga xishoon jiray oo looga baqi jiray lama taaban jirin culimmada waxaa la yidhi waxaa looga baqi jiray iyagana inay caro eebba ka timaado caro eebbe ninkii diinta hogaaminayey oo diinta hogaamiyaha ka ahaa oo ummadda gaarsiinaya wey isagoo marka xaq sheegaya haddaad tiraahdo waxaa sheegtay waxba kama jiraan caro ilaahay baa kugu dhacaysa inay marka caro alla kaaga timaado baa iyadana looga baqi jiray haweenka maxaa looga baqi jiray nin raga inuu haween faraha ku taagtaago ama la jartaayo waxay ahayd ceeb ma fahanti marka waxaa la yidhi haweenkana waxaa looga baqi jiray xag ceebeed fiiri bulshada soomaaliyeed qaabka noocaasa bay u dhisnayd marka xagga birimageydada la joogo marka casharkeennan saddexaad intaas ayuu ku egyahay ardayay waxaan ku darayaa layliga casharkii birimageydada layligu ma badnaan doono su-aasha koowaad ee aan layliga idinka weydiinaya waxay noqonaysaa inaad qeexi karto ama qeexdid ereyga birimageydo aad sheegto qaybaha birimageydada su-aasha saddexaad birimageydada duunyada iyo birimageydada dhirtu maxay ku kala duwan yihiin su-aasha afraad waxay noqonaysaa saddexda sida gaarka ah ay soomaalidu uga baqi jireen ama u ilaalin jireen birimageyda ahaan adoo sheegaya waxaad raacisaa sababta ay uga baqi jireen waa saddex qodob oo muhiim ahaa oo qaybta birimageydada ka mid ahaa su-aasha ku xigta waxay noqonaysaa marka la joogo isla casharka birimageydada waxaad sheegtaa geedaha soomaalidu ay tixgeliso 5 ka mid ah har ahaan ha u tixgeliso ama qaab kale ha u tixgeliso laakiin geedaha ugu muhiimsan ee dhulkeenna deegaanka Soomaaliyeed lafdhabarta u ah 5 ka mid ah sheeg waxa kaloo sheegtaa dhirta Soomaalideenu markaysan xoolaha lahayn ay nafta kula carari jireen oo ay ka heli jireen miraha iyo xabagta 4 geed oo ka mid ah waxa kaloo sheegtaa 2 neef oo ka mid ah xoolaha birimageydada ah 2 neef ka sheeg waxa kaloo su'aasha ku xigtay ay noqonaysaa isla casharkii birimageydada waxa la yiri maxaa lagu kala gartaa saddexda duub kale waa 3 duub leh oo halkan ka muuqda waa isimada culimada iyo dumarka maxaa lagu kala gartaa mid walba astaan gaar ah oo lagu garto baa sheegaysa su'aasha ku xigta waxay leedahay sheeg 3 qodob oo xoolaha birta looga ilaaliyo 3 qodob oo xoolaha in la bireeyo looga ilaaliyo baa sheegaysa su'aasha u dambaysa waxay leedahay ereyga goolbooto ereyga ah maxaad ku macnayn lahayd ereyga goolbooto maxaad ku macnayn lahayd waxaan raacinayaa ardayay su'aalaha tooska ah bay qaybta hore ahayd qaybta ta ee layliga qaybta hore baa ka dhigaysaa su'aalaha tooska qaybtana ta baa ka dhigaysaa waxaad macnaynaysaa
erayadan cusub maxaa looga jeedaa ereyga koowaad waa saqaf ereyga labaad waa kalax ereyga saddexaad waa sulub ereyga afraad waa sado ereyga shanaad waa sariig ereyga lixaad waa oofta ereyga toddobaad waa bartiita ah ereyga sideedaad waa caqiido ereyga sagaalaadna waa sariigto ereyga ku xiga muxuu noqonayaa oo tobnaadi wuxuu noqonayaa gobshoobay tobankaas erey maxaa lagaa rabaa inaad soo macnayso tobanka su'aalihii horena maxaa lagaa rabaa inaad ka soo jawaabtid cutubka casharka saddexaad ee cutubka bermageydada ayuu kaasi ahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu